muuqaalka meel dheer gaarsii like garay oo share garay si xogtan aad u daawatid galhareeri waa la gubay inna lillahi see loo gubay ciidamada dowladda ayaa gacanta goordhow ku dhigi rabo xogtii ugu dambeysay ayaan ku gaarsiin doonaa hadduu ilaahay idmo xogo kale oo rasmi ah ayaa daawan doontaa cabdi cabdullaahi oo magaciisa afgarashadu yahay cabdinaasir oo ahaa dhakhtar daaweynaya muddo ka badan 6 sano kooxda al-shabaab ayay u suurta gashay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya in gacanta lagu dhigo ciidamada gacanta ku soo dhigay waxay ahaayeen kuwa ammaanka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud hadda wuxuu ku jiraa gacanta laamaha ammaanka baaritaan ayaa ku bilowday waxa uu sharcigu qabo ayaa la marsiin doonaa muddo 6 sano waxa uu dabiibayay dagaalyahanada al-shabaab ciidamada ammaanka ayay u suurta gashay in gacanta ay ku dhigaan ciidanka qaranka dowladda Soomaaliya ayaa howlgal guuleystay waxay ka fuliyeen gudaha degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud Galhareeri waxay ka mid tahay goobaha ay ku ukun dhaleen qawaarijta Galhareeri goor dhow waa la qaban doonaa sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya si gaar ah ila daawo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xaqiijinayo warkan aan ku sheegayo halbeega aad ka daawanayso howlgalkan waxaa lagu beegsaday 3 xarumood oo al-shabaab ay deganaayeen maxay kala yihiin saddexdaas hadda daawanaysaa mid kamid ah waa gaarash ama geerish qawaarijtu ay isticmaali jireen goobta labaad waa baqaar hubkii ay ku gumaadi lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ugu jiray dalgu Galhareeri qawaarijtu waxay u ahayd xarun aad u weyn oo ay ka soo duulaan tagaan balse hadda geesiyaasha qaranka oo gumacay ugu horeeyaan ayaa gubaya sidoo kale xarumo kale ayay ciidamada kaabiga ku hayaan taliyaha ugu sareeya ee ciidamada qalabka sida waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan deegaanada Galmudug si loo soo bilaabo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab arintu markan isma saarna waa lagu kala tagayaa sheekaduna gacant ku qabasho ayay gari doontaa Galhareeri iyo goobaha kale la midka ah oo ay ku sugan yihiin al-shabaab muuqaalka meel dheer gaarsii waad mahadsantahay